kulan wacan daawade waa mar kale iyo muuqaal kale waa kuma Macallimu ninka dartiis xilka loogu qaaday madaxii shaqaalaha nisa maxaa iska bedelay mowqifka Axmed Madoobe iyo Macallimu hadda muxuu ka aaminsan yahay madaxweyne farmaajo Gedo xudunta khilaafaadka Soomaaliya doorashada sidee bay kaga qamsoomi doontaa maxaa ay isku hayeen Macallimu iyo Kulane muuqaalkan ayaan kaga hadli doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu soo gaaro channelkayga magaciigu waa Yaxya Maxamuud Maxamed wixii bixisay joogis way ku furan tahay balse waxaan ka codsan lahaa inaad ugu soo biirto oo channelka subscribe saarto aynu ku bilaabno haddii markii ninkii aan la shaqaynayno dawladdu u maleynayay inuu la xiray ninkii aan la dirayno Axmed Madoobe way aan islahayn oo gobolkan dib u dhigaan islahayn oo naga soo fakiyay Axmed Aslaan soo lama dhigi kara Gudoomiye hore gobolka Gedo Usmaan Nuur Xaaji Macallimu ayaa waxa uu gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo halkaas oo uu ka bilaabay dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed Macallimu waxa xilka laga qaaday bishii January 2021 waxaana la sheegay in maamulkii uu ka tirsanaa uu diidanaa maamulka Jubbaland uu hogaamiye Axmed Madoobe uu dhibaato u horseeday gobolkaas sidoo isagu qabay waxaana yiri Axmed Madoobe la dagaalama haddana korkeena ayaa lagu aqoonsaday oo 2 sano lagu siiyay yiri Macallimu haddaba 3 arrimood oo ku saabsan Macallimu ayaan qaybtani ku eegi doonaa Macallimu iyo dagaalka isaga iyo Cabdilaahi Kulane madaxii shaqaalaha nisa sidoo kalena u shaqeynaya sida taliye xigeenka nisa bartamihii bishii June ee sanadkan Macallimu oo wareysi siiyay warbaahinta waxa uu sheegay in isaga iyo dad uu ku sheegay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo ee caasimada Muqdisho waxay yihiin madaxii shaqaalaha ee hay'adda nisa Cabdilaahi Kulane arinta nagula haysta ayaa in nagula soo horjeedo doorashada dalka ka dhacaysa taas oo uu ka dambeeyo taliye xigeenka nisa Cabdilaahi Kulane mana ahan waxaan ka yeeleenayo xilligaas Macallimu u sheegay warbaahinta isku day aan ku raadinayo ninka la eedeeyay ayaa gul dareystay mana jirto meel ay hay'adda nisa ku beenisay eedeyntaas ugu timid Macallimu 21 July ayaa gudigii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u saaray arinta gobolka Gedo waxay ku taliyeen in la joojiyo muwaadiniinta laga celinayo garoomada dalka arintaas ayaa u muuqatay mid jawaab u ah Jubbaland oo horey loogu celiyay dad siyaasiyiin ah diidanaana maamulka halkaas ka jiray Axmed Madoobe ra'iisul wasaaraha ayaa si adag ugu nuucnuucsaday in talaabo ka qaadayo haddii ay dhacdo in muwaadiniin Soomaaliyeed laga celiyo gudaha dalka maalin kadib amarka ra'iisul wasaaraha Usmaan Nuur Xaaji Macallimu warbaahinta ayuu sheegay in laga celiyo garoonka Muqdisho isagoo talaabadaas ku eedeeyay taliye Cabdilaahi Kulane kaasoo dadka u yaqaaneen Kulane jiisa saacado kadibna ra'iisul wasaaraha waxa uu shaaciyay in xilku ka qaaday Cabdilaahi Kulane iyo madaxii Sirdoonka ee garoonka Aadan Cabdi Cabdiwahaab Sheekh Cali talaabadan ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu ugu jawaabay cabashadii Macallimu ayaa ahaa ninka ugu magac dheeraa maamulkii Gedo ka jiray sanadkii 2020 xilligaas oo ciidamada federaalka iyo kuwa Jubbaland ay dhowr jeer ku dagaalameen magaalada istiraatiijiyadda ee Beled Xaabo Macallimu waxaa la sheegay inuu horey ugu tirsanaa ciidanka dawladda uuna ka soo muuqan jiray furmaha dagaalka waxaana mar uu hanjabay Kenya daris baynu nahay ee darisnimada ha ilaaliso haddii ay ilaalin weydo waxaan amrayaa ciidankeena inay Nairobi ka cashayaan ayuu horaantii Febraayo 2020 yiri Macallimu Gedo waxaa markaas dawladda kula dagaalamaya ciidamo ka tirsan Jubbaland oo uu hogaaminayay isaga bishii December 2020 waxaa soo shaabaxday khilaaf u dhaxeeya mas'uuliyiinta maamulka Gedo ee taabacsan dawladda Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo markaas ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland balse u wareegay dhanka dawladda federaalka ayaa soo saaray warqad uu shaqo joojin ku sameynayo Gudoomiye Usmaan Nuur Xaaji Macallimu warqadda shaqo joojinta ayaa lagu sheegay in Macallimu uu ku tagrifalay awoodiisa isla markaana uu sameeyay inuu si sharci darro ah u xilal u magacaabay muddo kadibna waxa soo baxday warqad kale oo lagu sheegay in la xaliyay arinta Macallimu bartamihii January sanadan Macallimu ayaa xilka ku wareejiyay Axmed Buule Gareed oo tan iyo xilligaas ah gudoomiyaha gobolka Gedo Macallimu wixii markaas ka dambeeyay waxa uu soo wareegay Muqdisho waxay u muuqataa mid diidan maamulka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana la sheegay in isaga iyo Kulane khilaaf soo kala dhaxgalay sabab ay u noqotay in Macallimu lagu xiro Muqdisho walow xog rasmi ah laga heen madaxtooyada in arintani ay qayb ka lahayd haddana Macallimu iyo tiim kale oo raacsanaa muddo ay xabsi guri ku ahaayeen Muqdisho garoonkana muddo badan ayaa laga soo celiyay Kulane iyo Macallimu
inkastoo ay ka wada tirsan yihiin beesha ay gobolka Gedo degta haddana laf ahaan ay u kala weyn yihiin Macallimu waxa uu dheer gobolka Gedo waa nin saameyn ku leh taas oo ah mid kaliya ay dad badan ka yaabisay Macallimu ayaa saameyntiisa siyaasadeed muujiyay markii uu ku laabtay magaaladii Balad Xaabo iyo sidoo kale Luuq ee gobolka Gedo guddigii dib u heshiisiinta gobolka Gedo ee ra'iisul wasaaraha waxay u gudbiyeen warbixinta hawlihii u qabsoomay tala soo jeedinta la xiriirta xalweelista arrintaas ayaana keentay in Gedo aan qofna laga celin Kulane oo ahaa nin aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo ayaa hadalkiisii la tuuray waxaana taasi ay noqotay in awoodiisa la wiiqo sidoo kalena xilka laga qaado balse muxuu ahaa qorshaha uu damacsanaa Kulane Cabdullaahi Kulane oo ahaa ninkii yimid Mareykanka waxa uu ahaa mid ka mid ah saraakiisha nabad-sugidda ugu dhaqdhaqaaqa badan tani markii madaxweynuhu noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saameyntiisa siyaasadeedna waxay ahayd mid ka muuqata guud ahaan hay'adda balse tan iyo markii ra'iisul wasaaruhu sheegay inaan qofna la celin karin awoodiisu waxay ahayd mid la sii wiiqayo khilaafka isaga iyo taliyihii hay'adda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa cirka isku sii shareeray mar dhexdaas waxaana la sheegay in Fahad uu waraqad ka gudbiyay Kulane uuna faray madaxweynaha in ninkaas xilka uu ka qaadi doono balse madaxweyne Farmaajo ayaa Fahad Yaasiin waxa uu ku qanciyay in aan xilligan xilka laga qaadi karin Kulane maadaama uu yahay ninka dagaalka ka waday gobolka Gedo madaxweynuhuna arrintaas uu aad ugu baahnaa Kulane sidoo kale warar waxay sheegayaan inuu doonayo inuu tartamo kursi xildhibaannimo balse Kulane waxa uu cabsi ka qabay Macallimu maadaama uu Macallimu Muqdisho ku xiray si daraadeed waa arrinta ugu weyn inuu gobolka Gedo ka celiyo taas marka laga tago Gedo waxa taala 16 kursi oo federaalka ah waana kuraasta ugu hadalhaynta badan doorashada Soomaaliyana marar badan caqabad galiyay shirkii uu Soomareeb ee madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale dowlad goboleedyada waxa fashiliyay waxa uu ahaa arrinta gobolka Gedo Gedana waxay noqotay xudunta doorashooyinka Soomaaliya khilaafaadka ku abuurtay muddo dheer balse xilligan waxa laga gaaray waxa indhaha lagu hayn doonaa halka ay mari doonaan 16 kursi iyadoo gobolkaas uu joogo Macallimu oo dawladda xilligan la dagaashan Axmed Madoobe oo dad geystay madaxweyne Farmaajo gorgor haramcad nisa iyo sidoo kale duufaanta geystay sidee ayuu noqon doonaa xalka gobolkaas commentiga ugu reeb daawade nabadgelyo